imanaya imaaraadka iyo kuwa ka tegaya Yemen ee tegaya imaaraadka fariisimadii ay ku sugnaayeen ciidamada imaaraadku taageero ee Xadaramood iyo Mahra oo maanta ay ku dhaqaaqeen ciidanka Xadaramood ee uu taageero Sacuudiga wararkii ugu dambeeyay xaaladahaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa qaybta dambena waxaan idinku hayaa Donald Trump oo arin lala yaabay ku eedeeyay uguna hanjabay Iran haddaba maxay tahay arintaasu qodobadaas ayaynu barnaamijkeena subaxnimo ee saakay ku faaqidaynaa inta aan ku jirno warar cusub haday soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa balse waxaa naga xusuusa dadka qisooyinka aad u xiiseeya qiso cusub inay ku jirto channelkeena qisooyinka Nadaara 2 kaasoo aad ka heli doontaan qisadii maanta Jimcaha ayd aan barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo Jimcaha mar kale waxaan idin leeyahay Jimcaha mubaarak waa barnaamijkii subaxnimo haddaba barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa Hamas oo dadka muslimiinta caalamka weydiisatay maanta hal arin inay sameeyaan talow arintaasu maxay tahay waxay yiraahdeen dawladaha islaamka ay dadka muslimiinta iyo carabta arinka maanta hanoo sameeyaan yiraahdeen codsigii Hamas maanta ay u dirtay dadka muslimiinta maadaama ay tahay maalin Jimcaha in marka dadka loo soo duceeyo salaatul ghaib loo dukado ninkaan dukan karina in uu u duceeyo markii maanta maadaama Jimcaha ay tahay in dadka shuhadada ah loo duceeyo sida ay dalbadeen waxaan galaynaa arintii Yemen caadi ma sheeka ka soo socota meesha Yemen la leeyahay meel caadi ma waxa ka soo socda waxaan caadi ahayn haddaba marka shalay waxay noo joogtay iyadoo dawladda Yemen ay soo saartay war dawladda Yemen waa leeyahay laakiin Sacuudiga ku taaban oo waxay yiraahdeen wax diyaarada oo imaaraadka ka iman kara oo Yemen iman kara ma jirto wax diyaarada oo Yemen ka baxaya oo imaaraadka tagayana ma jirto ilaaday imaaraad waa la xiray wixiis hawshaas halkaas ay joogtay Sacuudiga wuxuu kaloo xalay noo mareysay inuu yiri saldhigyada meelaha ay deganayeen nimankii hal laga fogaado imaaraadka iyo hal laga fogaado Xadaramood iyo eriyadaas meelihii ay ciidamadu ka soo galeen sheekadu marka halkaas ku nusreed waatii amiirka dawladda Qatar uu soo dhaxgalay labada nin bin Zayed iyo bin Salman labadaba uu la hadlayay saakay marka maxaa dhacay saakay waxa jiray diyaarad Sacuudiga ka kacday oo wafdi Sacuudiga waday waxay u socotay airportka magaalada Cadan si ay halka u tagto oo wada hadal iyo balxiisada sidii loo dejin lahaa maadaama imaaraadku waa baxay uu yiri in marka la wada hadal siiyo nimankii imaaraadku ka tagay maartay kooxda imaaraadka meesha u joogtay ee gooni goosadka ahayd iyo qoladii kale iyo in macnaha hawlo diblomaasiyadeed hadii laga baaqsan karo Sacuudiga dagaalku inuu toos u galo oo nimankan burburiyo hadiiba laga baaqsan karo isku day diblomaasiyadeed oo la weydiistay ahayn dawladaha caalamku ay yiraahdeen Sacuudiga arinta balxasil imaaraad waa baxo yiri nimankan Yemeniyiinta dhaxgal bal baasha meesha ka sameey nimankii imaaraadka taageerayay imaaraadka asaguna ka dambeeyay imaaraadka diyaaradihiisa laba mamnuucay nimankii iyaguna waxay yiraahdeen car diyaaradaadu ha timaado Yemen hadayna dhulka soo dhigeen macal wafdiga inay tasriix ogolaansho siiyaan in Sacuudiga oo ku degi karo waa loo diiday sheekadu marka halkaas maraysa arintu soo marka wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray wakaalada wararka ee Anadolu ayaa waxay tiri safiirka Riyadh u jooga dalka Yemen ayaa wuxuu si rasmi ah u sheegay in ninka madaxda u ah kooxda STC leeyahay gooni goosadka koonfurta inay mamnuuceen diyaarad Sacuudigu leeyahay in ay Cadan ku degto sida safiirka uu cadeeyay haddaba safiirka Sacuudiga dalka Yemen u jooga ninka la yiraahdo Mohammed Al-Jabir ayaa Jimcaha maanta wuxuu sheegay in ninka madaxda u ah golahaasi gooni goosadka STC leeyahay ninkaas waxa la yiraahdaa Aidarus Az-Zubaydi waxa uu sheegay in marka uu diiday in uu wax ogolaanshiya siiyo diyaaradda Sacuudiga ee wafdiga rasmiga Sacuudiga ay la socdeen oo marka ay doonayeen inay halka tagaan oo ay ku degaan way ninka safiirka marka Sacuudiga u jooga Yemen
oo dowladan adduunka aqoonsan yahay la jooga ayaa si diyaaradda nabadgelyo ugu degto nimankan dee huba iska haystaan way ku dhufan karaan maadaama sacuudigu markuu waxay leeyihiin diyaaraddeena wafdiga la socda waa inaad tasriix siisaa si ay Yemen u timaado oo ku degto ninkan marka imaaraadka uu ka dabaaqtama wixii laga joojiyay moogtay asaguna waa diiday markii kadib marka safiirka sacuudiga wuxuu soo saaray war hanjabaad oo sacuudigu maalmaan wax yar ma adkaysa kor hanjabaadda way ka socotaa haddaba arinta soo telefishinka Al-Arabiya ee sacuudiga laga leeyahay wuxuu yiri safiirka sacuudiga ee Yemen war uu soo saaray wuxuu ku sheegay madaxa kooxdan maartay STC leeraado gooni goosadka inuu diiday in xaaladda uu dajiyo laakiin wuxuu sheegay inuu isagu qaadi doono mas'uuliyadda waxa meesha uu kala kulmo وفرس معناها حيسد إن لدتشيو وفدق السعودي يمادان لو ذا هضلو سو مادن ديدن ها أذيقا قاعدة يا مسؤولية دمرك وحي كردشاليري وحو نكن كودقين هاي نمكي إمارات كتاقيري هل كاسا مركا الله اسكو حيستا ويا قيب تاس مركا إيضنا ورركا عصوبة كمتاي حالة يبنو يكولوشا عادي بقى مردو واحد مغلد دونتان نكتال iska saaray imaaraad iyo sacuudi halkaas wax badan ka soo socda xaalku dadka wax falanqeynay waxay leeyihiin baashu hadaan hadda laga hortagin maraan la qaban karin ay tagi doontaa waa la isku baabaa labada bin Zayed iyo bin Salman waa laba doqomaal leeyahay haday hal mar isku bilaabaan bas waay wixii huba Mareykan iyo meelaan ay ka soo gateen waa isku baabeerayaan waayay ilaahu marka xaramka iyo maartay meerihii cibaadada ilaahay oo meelaha ka badbaaday dhibaatada niman naxaya maahan hadaba marka waxay kale xalay noo mareysay sheekada meel ku saabsan nimankii sacuudiga ahaa inay yiraahdeen hal laga fogaado xariyihii ay joogeen imaaraad wataan barnaamijka xal ku soo qaadan Al Jazeera ay qorays okay saakin marka maxaa dhacay sacuudigu waxay amar siiyeen xoogag waxa jira sacuudiga iyaguna ay soo tababareen oo reer Hadramaut leeraado Hadramaut iyo Mahra leeraada waa mandiqada ugu ballaaran dalka Yemen waay bartamaha Yemen ku taala xuduud dheerna waxay leedahay sacuudiga nimankaas oo la soo weeraro deegaanadeedu meelo badan markii hore laga qabsaday ayaa hadda saakay waxay ku dhaqaaqeen inay la wareegaan saldhigyadii laga qabsaday shalay marka awoodii ay kaga soo baxeen maxay ahayd awood ka culus la soo saaray imaaraadka qolada imaaraadka markay ogaadeen sheekadu inay xunta imaaraadna baxay waxay dhaheen anagu saldhigyadii waa ka guurnay aaga Kenya ku laabanay si uu sacuudiga u soo duqayn laakiin hadda sacuudiga wuxuu yiri ku dhaqaaqa saldhigyada qabsada haday idin la dagaalaana waa imaanaya sheekadu marka halkaas maray hadaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyaduna sheekada laga qoray ninka gobolka Hadramaut madaxda ka ah ayaa si rasmi ah wuxuu u sheegay inay bilowdeen howlgallo lagu la wareegayo saldhigyada militariga ee ay sheegeen kooxahan gooni u goosadka imaaraadku taageero inay joogeen oo ay iskaga baxeen marka halka ay ku dhaqaaqayaan marka saakay hawshaas ayaa ka cusub dalka Yemen wayaab arrin la yaab la marka meesha ka socota Yemen marka waa la isku haystaa koox uu taageero imaaraadka oo gooni u goosad rabta oo carabtii oo dhan ay leedahay Israa'iil ka dambaysa Mareykanku waxbuu ka og yahay in gooni u goosad qoladaas Yemen ay kala gooyaan si Israa'iil meesha u soo degto diimahan Ibraahimiyada la yiraahdana ninkii madaxda uu ahaa hore u sheegay Yemeniga waa ku beereena u yiraanag wixii imaaraad meeshu noo wada galeynaa nimanka marka hawshaas ay ayagu aaminsan sacuudiguna wuxuu u arkaa nimankan haday Hadramaut iyo Mahra iyo dhulkan qabsadaan xuduudiisa yimaadaan oo Israa'iil ku daaban tahay maxay yaala marka al-amn al-qawmi lirada amniga qaranka sacuudiga oo difaacaya marka sheekadu marka halkaas maray diyaaradii sacuudiga ma noo ima kartidaaliyeen saa adiguba u diiday kuwa imaaraadka sheeko marka waa nusan tahay xaalku marka halkaas mara laakiin dadka wax falanqeynaya qaarkood waxay ka hadlayaan waxay leeyihiin imaaraadka ma ka fogaanaya Yemen xaguudaga qaska iyo bar xataa haduu ka baxo hagee waa meesha ugu dhow uu degi karo meel kale u dhow eriyada ma jirto iyo cid soo dhaweysanayse
meelahaanu tagaalee Soomaaliya meel ka raadsana Berbera iyo Boosaaso iyo dhulkan ayuu ka soo koorsayn karaa meel kale uu tagi karo ma jirtaa leey marka sheekadaas marka halkaas mare wixii wararaya man ka soo kordha barnaamijyadeeda ayaan mid idin kula socodsiin doona qadar xayeysiisa kadib Trump oo sheeka la yaab leh iyo handadaad lagu qoslay u diray Iran waa sheeka aad cajiib oo aan idinkaga haya Iran iyo Trump xayeysiinta kadib متعشى برشاد القرآن الكريم كا يعلم تشريعه soo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta oo Jimca mubaarak asxaabay qaybtan ugu dambaysa waxaanu kaga hadlaynaa Trump iyo Iran maxaa kala haysta hadaba waxaynu ka hadlaynaa ninkii Trump ahaa iska soo jaray xalay wuxuu leeyahay maataan shalay ka hadalnay xalay barnaamijkaygii mudaharaadii inay dhaceen dad ku dhinteen gudaha dalka Iran oo macnaha meesha ay wax ka socdaan Soomaa ninkii wuxuu leeyahay dhageysto haye haddii dadka mudaharaada ay xabad ku ridaan anaa u soo heelinay oo adi Iran ma tahay dadkan Iran iyo armeeyada gudaha maxaa ka galay meeqa mudaharaada Mareykan adi lagaaga soo horjeeda dhici jirtay yaa soo fargeli jira maya ma taaba kartid Iiraaniyiintan waxa ku sameey karta male dadkii ha mudaharaadaan hay ku kacaan waa tabti Israa'iil sirdoonkeedii ay lahayd toos u sheegteen inay ka shaqeynayaan ayuu asaguna hawsha wada Iran marka waxay tiri waxa odaga lacalac waay wax lagu qoslo waay tiri waxa wada maxaa ka galay tiri wadakan hadaan islaayno iyo hadaan isdirno iyo maxaa ka qosay isaga marka sheekadii marka ninkii odaga wuxuu leeyahay dadka mudaharaadaya wax ku rida ana ibaaraay soo socodeen awalba anaga faataxan oo ka celinis hadaba aanad tuso Sky News wuxuu leeyahay sababo ku saabsan mudaharaadyada socda fariin digniin leh ayuu Trump wuxuu u diray Iran hadaba fariintaas qosol kale marka maxay tahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcaha maanta waxa uu sheegay hadii ay ku rido Iran rasaas dadka mudaharaadaya ee nabadgelyada u mudaharaadaya oo ay disho Mareykanku waxa uu sheegay inuu soo farigelin doono sidii dadka uu u badbaadin lahaa والله يا ابو دوكان بجدا wax kasta arkaysa dadkan ma taaba kartin nabadgelyo u mudaharaado hada taabato ana imaanayo dadka u soo heelina adi dadkan marka dadka la dhalatay adi maxaa ka galay dadka soo ayaga isbalaha marka waxa la rabaa la iska sameeyaa adduunyada sharci iyo nidaam iyo cid celisa ma jirto marka xaalku halkaas uu maraa warar haday soo kordhaan barnaamijyada dambe la socda barnaamijyadeeda ku xirnaada xaqiiqda ku salaysan inagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararka aan soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka fakarkiina aragtidiina noo soo qora barnaamijka subscribe ka iloobinina YouTube-ka Facebook-na follow gareeyo waxa soo kale naga xusuusa maanta waa Jimce channelkeena kale ee qisooyinka nadaara laba dadkii ku xirnaa qiso cusub oo cajiib ah ayaa halka ku jirta iyaguna halka ay ku feesteen doonaan way ku jimcaysan doonaan inta aan markale